sida uu sheegay taliyaha ciidamada booliiska Cabdilaahi Fadal Iimaan oo uu ku sheegay bartiisa Facebook waxa xalay abaar sagaalkii iyo barkii ciidamada booliiska Soomaaliland ay xireen buu sheegay taliyuhu wariye Cabdimaalik Muuse Coldoon oo jooga magaalada Burco ee gobolka Togdheer taliyuhu waxa uu sheegay in ciidamada booliiska Soomaaliland ay ku daba jireen tan iyo intii uu Soomaaliland ku soo noqday Cabdimaalik Muuse Coldoon oo muddo 3 bilood ah dhuumaalay ku joogay sida uu sheegay taliyuhu magaalada Burco marka wariye Cabdimaalik Muuse Coldoon waxa uu hore uga caban jiray in ciidamada booliiska Togdheer ay isla markaana waaran looga soo gooyay maxkamada Hargeysa lagu soo qabanayo sidaasina lagu xirayo marka xariga Coldoon calaw arimahaasi ayuu la xiriiraa waxyaabaha lagu xiray ilaa iyo hadda la ogyahayna waxa kamid ah sida wariyahaasi ku soo qori jiray barihiisa bulshada in madaxweynaha Soomaaliland iyo sidoo kale qaybo kamid ah maamulku ay diideen qoraallo ama waxyaabo uu ka hadlo inta badan Cabdimaalik Muuse Coldoon oo baraha bulshada kaga hadlo ururka u dooda suxufiyiinta Soomaaliland ilaa ay hadda ma ka hadleen xariga wariye Coldoon in badan ayaa lagu xiray Cabdimaalik Muuse Coldoon caliyo deegaanada Soomaaliland ururka suxufiyiinta Soomaaliland marna kama hadleen xarigaasi loo geystay wariye Cabdimaalik Muuse Coldoon ururku waxa uu sheegay in uu ka talaabay Cabdimaalik Muuse Coldoon mar hore gudoomiyaha la wareystay Maxamed Cabdi Jaamac Xuuto ninkaas gudoomiyaha ka ururka suxufiyiinta Soomaaliland waxa uu sheegay Cabdimaalik in xuduudka Soomaaliland uu ka talaabay isla markaana waxyaabo qarannimada Soomaaliland ka soo horjeeda uu ku kaco inta badan falalkaasi awgeedna aanay ahayn in saxaafadda laga hadlo balse hadii lagu xiri lahaa wax saxaafadda la xidhiidha ama hawl maalmeedkiisa shaqo ay ka hadli lahaayeen marka ururku markii horena kama hadal ilaa iyo haddana war kama soo saarin xarigan xalay ee ugu dambeeyay lagula kacay wariye Cabdimaalik Muuse Coldoon taliska booliisku Soomaaliland ma sheegeen waqtiga maxkamad la horgeynayo wariye Coldoon inkastoo dastuurka Soomaaliland uu dhigayo in muddo 48 saacadood maxkamadda lagu horgeeyo eedeysanaha dambiga loo haysta ama ciidamada booliisku ay eedeynayaan haddana ilaa iyo hadda lama sheegin waqtiga rasmiga ee la geyn doono wariye Cabdimaalik Muuse Coldoon maxkamad marar badanna waxa uu ku jiray waqti aad u dheer saldhigyada Soomaaliland markii dambena waxaa iska sii daayay madaxtooyada inkastoo sanadkii hore lagu xukumay muddo 3 sano waxaa si caafi isu fadhiyay madaxweynihii hore Soomaaliland Mudane Axmed Maxamed Xasan Silaayo markii lagu helay falal qaran dumisnimo sida ay maxkamadda gobolka Maroodijeex maalintaasi hore Cabdimaalik Muuse Coldoon ku xukuntay